maanta waxaan joognaa meel ciidankeennu ayaguna ay kalsooni isu qabaan annaga madaxdaana aan kalsooni ku qabno. dal aan ciidan xoog lahayn dal sharafna maaha, dal karaamana ma aha. macnaha haddiisan ciidankeennu jirin oon ciidankeenna xoogga dalku oo xoog leh uusan jirin إننا مجرنا برشدنا ومدنا مجرنا. كاسوتا معيا كدينا يا باناي. وحال قد لي قياستي سديد بقول لحدني سديد ريكور كأنت الله هيو وكوحة هربك حسدا. أيوة سب وحدة كعنت وقولي جاي مقالة مبارك تولد دار السلام مقالة أوديك له مقالة بريد له. مركي رئيس الوزراء وتحقلي تلاد مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية. waxaa ra'iisul wasaare mudane xamse cabdi barre uu magacaabay mudane ambassador axmed macalin fiqi axmed waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. kadib magacaabistii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya 27 Abriil 2025 iyo munaasabadii uu xilka kula wareegay 1 May 2025 wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay gashay marxalad isbedel dhab leh oo la taaban karo muddada halka sano ah May 2025 ilaa May 2026 wasaaradda oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga mudane Axmed Macalin Fiqi waxay ku guuleysatay xoojinta awoodda difaaca dalka iyo tayeynta hay'adaha amniga. munaasabadii xil wareejinta wasiirka ayaa ballan qaaday qorshayaal qaran oo ku qotoma dib u habeyn, xoojin hay'adeed, tayeyn ciidan iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka argagixisada iyo difaaca dalka. waxaan xoogga saari doonnaa wixii dib u habeena oo horay u socday inay sii dhammaystirmaan oo aan soo saaranno ciidan ku suntan tayo aqoon iyo anshax lagu hadlayn karo amniga dalka gudan kara waajibaadkooda keligood ciidamada kale ee nala joogana aan leenahay waa isku fillaannay markii aan gaarno halkaas waan mahadsantihiin. waxaan xoojin doonnaa wasaaradda difaaca inaan barnaamijkeeda iyo reformkeeda inaan qayb ka ciyaaro. waxaan hirgelin doonnaa qorshaha horumarinta amniga qaranka security sector development plan oo si buuxda qorshahaasoo madaxweynuhu dalku ka daahfuray magaalada New York 21 December 2023. waxaan xoojin doonnaa xiriirka shacabka iyo ciidanka u dhaxeeya sidaas si la mid ah waxaan xoojin doonnaa xiriirka dowladaha caawiya ciidankeenna oo aan dhegaysan doonnaa konseynkooda iyo talooyinkooda ku saabsan muddadii ay ka shaqaynayeen ciidanka. difaacu waa shaqo wadaniyadeed waxaana lama huraan ah in ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto muhiimadda ciidanka qaranku ama ciidanka xoogga dalku uu leeyahay. muddada sanadka ah ee uu xilka hayo wasiir Axmed Macalin Fiqi waxay ku asteysan tahay guulo waxgala isagoo muujiyay in difaaca qaranka uusan ku koobnayn dagaalka furinta oo kaliya balse uu yahay nidaam dawladeed oo ku dhisan hoggaan hufan, fulinta siyaasadaha difaaca qaranka, tababarro joogto ah iyo kasbashada kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. markii uu xilka la wareegay wasiir Axmed Macalin Fiqi wuxuu si degdeg ah u bilaabay qorshaha dib u qaabaynta wasaaradda. kulamadii ugu horeeyay ee uu la yeeshay agaasimayaasha iyo howlwadeennada wuxuu bixiyay jihayn cad oo qeexaysa hiigsiga wasaaradda. tani waxay saldhig u noqotay dib u qaabaynta wasaaradda isla markaana waxay dardar gelisay hufnaanta, kala dambaynta iyo midaynta shaqada iyadoo laga ambaqaadayo xeer madaxweyne ee lambarkiisu ahaa 238 ee soo baxay 1 July 2024. waxaa la guda galay
fulinta wareegtada madaxweynaha ee dib u qaabaynta qaab-dhismeedka wasaaradda iyadoo laga bilaabay buuxinta boosaska hab maamul tayaynta shaqada iyo xoojinta wada shaqaynta wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dib u qaabaynta wasaaradda waxaa barbar socday hagaajinta nidaamyada maamulka ee la xiriira ciidamada, mushaharaadka, diiwaangelinta iyo joogtaynta mustaqbalka fog ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa la hirgeliyey hanaan dib u habayn iyo diiwaangelin danabaysan oo lagu xaqiijinayo xogta dhabta ah iyo xaaladda guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. geedi socodkan wuxuu diiradda saaray hubinta askarta ku sugan goobahooda shaqo, xaqiijinta askarta weli ku sugan adeegga ciidanka, kala saaridda askarta howlgabka gaartay, diiwaangelinta askarta dhaawaca ah iyo kuwa naafada ah, aqoonsiga askarta aan xaadirin goobahooda shaqo iyo kala caddaynta askarta ku maqan fasaxyada sharciga ah iyo kuwa si sharci darraa uga maqan waajibaadkooda ciidan. dib u habayntan waxay saldhig u noqotay dhismaha diiwaan ciidan oo sax ah, lagu kalsoonaan karo, isla markaana kor u qaadaya hufnaanta, isla xisaabtanka iyo maamulka tayaysan ee ciidamada si loo xaqiijiyo xuquuqda ciidamada, habsami u socodka mushaaraadka, qorshaynta howlgabka iyo joogtaynta mustaqbalka fog ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. howlahan ayaa ku yimid wada shaqaynta dhow oo dhex martay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wuxuu noo ahayd sanad wasaaraddu reform xooggan ay gelaysay kaljarkii ahaa loolanka iyo isriixriixa iyo kaasna aan soo gebagabaynay oo taliska iyo kulli iyo wasaaraddii ka dhexayn jiray ama wasaaradda gudaheedii isriixriix ka dhexayn jiray. kulli agaasimayaashaas imtixaan ayay ku wada yimaadeen, qof aan imtixaan laga qaadin oo dad kale aysan la tartamin oo ma joogo meeshaan ma joogo. marka waxay runtii noo ahayd dad merit ku yimid oo adeer iyo qaraabo iyo hebel oo madaxu meeshaan igu tuuriyo aan ku imaan. sanadkan golaha wasiirada ayaa meel mariyey hindis sharciyeedyo, xeer nidaamiyayaal iyo dhismaha hay-ado muhiim u ah difaaca qaranka. waxaa la ansixiyey hindis sharciyeedka difaaca qaranka, xeer nidaamyaha aasaasidda hay-adda daryeelka aqoonta shuhadada, naafada iyo howlgabka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, siyaasadda qaran ee ilaalinta badqabka rayidka xilliyada howlgallada ciidan iyo colaadaha hubaysan, iyo xeer nidaamyaha u qaybsanayaasha arrimaha difaaca. tallaabooyinkan waxay saldhig u noqdeen dhismaha nidaam difaac oo sharciyeysan, la xisaabtami kara tayada iyo waxqabadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kana jawaabi kara baahiyaha ciidanka, shacabka iyo qaranka. wasiir Axmed Macalin Fiqi wuxuu si cad u muujiyey in dagaalka lagula jiro argagixisada uusan ahayn mid militari oo keliya, waa dagaal ciidan, waa dagaal fikir, waa dagaal xog, waa dagaal lagu difaacayo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed. sidaas darteed wasaaradda gaashaandhigga waxay xoojisay dowrka warbaahinta, xiriirka dadweynaha iyo isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee wasaaradda gaashaandhigga. waxaa la dardargeliyey baahinta wararka rasmiga ah ee wasaaradda, la xoojiyey baraha bulshada, lana hirgeliyey websayte-ka wasaaradda si shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkuba u helaan xog rasmi ah, degdeg ah oo ku salaysan xaqiiqda dhabta ah. websayte-ka iyo baraha rasmiga ah ee wasaaradda waxaa lagu baahiyaa xogo ku qoran 3 luuqadood, taas oo sare u qaaday awoodda wasaaradda ee wargelinta shacabka Soomaaliyeed, saaxiibada caalamka iyo qurba joogtaba. wasaaraddu waxay si joogto ah u soo bandhigtay howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, deegaanada la xoreeyey,
khasaaraha la gaarsiiyey argagixisada iyo dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo xasiloonida dalka. qorshahan waa mid muhiim ah u ah horumarinta dhabta ah ee warbaahinta difaaca, wuxuuna noqon doonaa mid gacan ka geysta dhismaha ciidan qaran oo leh cod iyo muuqaal ay ku faani karaan shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna ay ka heli karaan xogta rasmiga ah tayada iyo waxqabadka ciidankeena. sidoo kale si sare loogu qaado aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha wasaaradda iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka, waxay wasaaradda gaashaandhiggu hirgelisay xarunta luuqadaha iyo tarjumaadda, taas oo lagu xoojinayo iskaashiga xirfadeed, tayeynta tarjumaadda difaaca iyo adeegsiga luuqadaha ee howlwadeennada wasaaradda iyo taliska. inaan maanta daah furayno xaruntan luqadaha loogu talagalay iyo tarjumaadda. xaruntan oo loo qabo baahi weyn looguna talagalay inay noqoto tiir muhiim u ah horumarinta awoodaha iyo aqooneed ee lagu dhisayo lagu kobcinayo aqoonta howlwadeennada iyo saraakiishaba iyo wada shaqaynta caalamka aan la leenahana wax weyn ka tari doonta. macadku waxa uu bixin doonaa waxbarasho istiraatiiji ah oo hormuud u noqon doonta baridda luqadaha sida Englishka iyo Carabiga iyo Turkiga, kuwaas oo marka horeta fayska koowaad iyo dufcadda koowaad oo lagu bilaabayo macadku uu yahay. wasaaraddan waxaan joogaa muddo dheer ilaa 18 sano. waa markii u horeysay oo aan waxbarasho helno oo qiimeyntan aan helno. yani 18 sano maanu soo marin macad ama iskool aan ku baran inaan helno. ma haddaasna ilaahay baa le, ilaahay ka sokoona waxaa le wasiir Axmed Macalin Fiqi. hadal dheer kama furna meeshan. wasiir ku dhiirashada aad ku dhiiratay inaad suuro geliso barnaamij waxbarasho oo dadka lagu tababaro, waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad waxtar u leh oo ka qayb qaadanaysa shaqada keliya mooyaane dhismaha mu'asasaadka dowladda, waana tusaale fiican. muddadii sanadka ah wasiirka gaashaandhigga mudane Axmed Macalin Fiqi wuxuu si weyn u xoojiyey iskaashiga Soomaaliya la leedahay dalalka saaxiibada ah iyo hay'adaha caalamiga ah. Soomaaliya waxay heshiisyo la saxiixatay Turkiga, Jabuuti, Qatar iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya. golaha wasiirada ayaa sidoo kale ansixiyey heshiisyo hore iyadoo ay jiraan heshiisyo kale oo weli socda. wasiirku wuxuu booqashooyin rasmi ah ku tegay dalal ay ka mid yihiin Ciraaq, Qatar, Turkiga, Jabuuti, Shiinaha, Serbiya, Masar, Algeria, Sacuudiga, Talyaaniga iyo Uganda, halkaas oo uu kulamo kula qaatay madaxda gaashaandhigga iyo hay'adaha difaaca. sidoo kale wasiirka difaaca dowladda Sweden ayaa booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho, halkaas oo uu kulan kula yeeshay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga difaaca, taageerada dib u dhiska hay'adaha amniga iyo horumarinta wada shaqaynta labada dal. sidoo kale Soomaaliya waxay martigelisay kalfadhiyada 34aad iyo 35aad ee ciidamada rigliga ah ee Bariga Afrika, kuwaas oo markii ugu horeysay lagu qabtay Muqdisho. tani waxay muujisay in Soomaaliya aysan ahayn dal gacan laga siiyo amniga oo keliya, balse ay qayb ka tahay hoggaanka nabadda iyo arrimaha difaaca ee gobolka. anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha ciidanka heeganka Bariga Afrika Eastern Africa Standby Force ee sanadka 2025, waxaan si weyn ugu faraxsanahay ka dowlad ahaan dowladda federaalka Soomaaliya in caasimadda Soomaaliya ay martigeliso shirka 34aad ee xubnaha siyaasadda ee ciidanka heeganka Bariga Afrika. shirkani wuxuu ku soo aaday waqti xasaasi ah oo gobolku wajahayo caqabado badan iyo khataro amni oo halis ku ah nabadda,
xasiloonida iyo horumarka bariga Afrika. The convening of the policy organs meeting in Mogadishu is not only a powerful symbol of regional solidarity, but also a testament to the growing peace, stability, and resilience of this great republic. waxaan ku faraxsanahay Soomaaliya inaan sanadkan ahayn shirgudoonka organkan muhiimka ah laba shirna in lagu qabtay magaalada Muqdisho oo si nabadgelyo ku dhacay. Your presence in Somalia is both symbolic and meaningful. It reflects progress that our country has made and the confidence of the region in Somalia's continued journey towards peace, stability, and recovery. wasaaradda gaashaandhigga waxay sidoo kale daahfurtay guddiga difaaca si loo mideeyo qorshaynta difaaca wada shaqaynta dawladda federaalka iyo saaxiibada caalamka loona xoojiyo isku duwidda arrimaha amniga iyo dib u dhiska ciidanka. sharaf iyo maamuus weyn ayay noo tahay inaan intugu soo dhaweyno kulankan furitaanka initiative-kan cusub ee guddiga difaaca kaasoo astaan u ah tallaabo taariikhi ah oo ay Soomaaliya u qaadayso xoojinta hanaanka hogaaminta difaaca kor u qaadidda isku duwidda hay'adaha amniga oo halkan maanta ay wada fadhiyaan iyo mideynta jihada istiraatiijiga ah ee howlgallada dib u habeynta hay'adaha iyo go'aanada hogaamineed ee heer qaran. dib u qaabaynta wasaaradda waxaa barbar socday dib u habaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ujeeddada ugu weyn waa dhismaha ciidan qaran oo tayo sare leh kuna shaqeeya sharci, nidaam iyo aqoon, isla markaana awood u leh gudashada waajibaadka difaaca iyo sugidda ammaanka dalka. dib u habaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay diiradda saartay dhismaha ciidan leh hoggaan, kala dambeyn, xirfad, anshax, karti iyo diyaargarow howlgal. waxaa sidoo kale la xoojiyey fahamka ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu yahay astaan qaran oo u taagan ilaalinta madaxbannaanida, midnimada iyo sharafta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay xoogga saareen dhismaha aqoonta iyo kaabayaasha farsamo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. cutubyo kala duwan ayaa lagu tababaray gobollada dalka iyo dalalka dibadda ah oo Soomaaliya ay iskaashi difaac la leedahay. waxaa la dhisay xarumo tababar oo cusub halka qaar kalena dib loo howlgeliyey. xarun tababar oo dawladda UK ay ka dhistay magaalada Baydhabo ayaa lagu wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga. saraakiil iyo cutubyo cusub ayaa ka qalin jibiyey xarunta tababarka Turkisom ee Muqdisho, halka saraakiil kale ay tababaro iyo waxbarasho ciidan ku soo qaateen Turkiga, Shiinaha, Qatar, boqortooyada Sacuudiga iyo dalal kale. munaasabadan waxay calaamad u tahay dadaalka, adkaysiga iyo go'aanka adag ee ay muujiyeen wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee qalin jabinaya maanta. waxay mudan yihiin bogaadin maadaama ay muujiyeen karti, adkaysi, wadaninimo dhab ah oo ay ugu heelan yihiin difaaca dalkooda hooyo. waxaan si gaar ah u bogaadinayaa gabdhaha geesiyada ah ee maanta ka mid noqonaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. maahan oo kaliya inay tartan la galeen wiilasha, balse waxay muujiyeen dadaal iyo dulqaad dheeri ah. dufcadda cusub ee ciidamadeena kumaandoosta ee gorgor ee maanta halkaan ururadeedu ka qalin jebinayaan waa qayb ka mid ah oo ku biiraya ciidamadii horay dhiiggooda u bixiyey ee dalka ka shaqaynayay. waxay u joogaan ciidankan una dhaarteen maantay
inay fidiyaan awoodda dowladnimada, inay cadowga dalka Soomaaliyeed midka muuqda iyo midka aan muuqanba ay dalka ka qabtaan, iyo inay sharafka ciidanka xoogga dalka iyo dadka Soomaaliyeed sharafkooda ilaaliyaan. si loo yareeyo khatarta qaraxyada ay argagixisadu ku beegsadaan shacabka iyo ciidamada amniga, dowladda Soomaaliya ayaa dowladda Ingiriiska ka heshay qalab casri ah oo loogu talagalay ka hortagga, baarista iyo fashilinta walxaha qarxa. qalabkan oo garab socda ansixinta istiraatiijiyadda qaran ee ka hortagga qaraxyada macmalka ah wuxuu xoojinayaa awoodda ciidamada ee lagu ogaado laguna burburiyo miinooyinka iyo qaraxyada si loo cuuriyaamiyo xeeladaha argagixisada loona ilaaliyo badqabka shacabka Soomaaliyeed. daafurka kulankan sare ee ansixinta istiraatiijiyadda qaranka ee ka hortagga qaraxyada macmalka ah tani waa guul taariikhi ah oo soo hoyatay dalkeenna. markii hore Soomaaliya ma aysan haysan hal istiraatiijiyad oo midaysan oo hoggaan qaran leh oo looga hortagayo khataraha qaraxyada macmalka ah. waxaan arrintaas rabaa inaan ku bogaadiyo xafiiska amniga qaranka. tobankii Abriil 2026 Soomaaliya waxay xustay sanad guuradii 66aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo munaasabadda lagu soo bandhigay xuduudda ciidanka ee dhulka, cirka iyo badda. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya marka niman qoryo wato oo wax dila ma aha, cadow iyo midku doon baa naf dila ma aha, waa naf badbaadiyayaal taariikhduna ay suntan tahay, muuqatana oo la arki karo badbaadada ay soo sameeyaan. maantana meeshii taagan yihiin dowladnimada dalka markii la badbaadiyo, waxaa la badbaadiyey 20 milyan oo Soomaali ah ayaa naftooda, amnigooda, sharaftooda, haybadooda la badbaadiyey. intaasoo dhan wax isku qaban karan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka jira. muddada sanadka ah ee uu danjire Axmed Macalin Fiqi hayo xilka wasaaradda gaashaandhigga, dagaalka ka dhanka ah khawaarijta Al-Shabaab wuxuu galay marxalad cusub oo isku dhafan: qorshayn, iskaashi, howlgal, xoreyn iyo xasilin. ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo garab ka helaya shacabka Soomaaliyeed, ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka EUSOM iyo saaxiibada kale ee caalamka waxay fuliyeen howlgallo ballaaran oo dhulka iyo cirka isugu jira. howlgalladaas waxaa lagu bartilmaameedsaday saldhigyada argagixisada, horjoogayaasha, shabakadaha sahayda, xarumaha kaydka hubka iyo goobaha lagu diyaariyo qaraxyada. in sanadkan ay ku fashilmeen inay qabsan waayaan shirkoodii sanadlaha ahaa ee bishii Rajab shirkoodii sanadlaha ahaa kooxda khawaarijtu ay isugu imaan jirtay sababay inay qabsan waayaan kadib markii macaaqishoodii meelahoodii saldhigyada u ahayd oo kooxaha kuwa hoggaamiya madaxdoodu ay ku gaban jireen markii la galay. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hoggaaminayay howlgalladan, kuwaa oo lagu guulaystay xoreynta deegaano muhiim ah iyo jabinta awooddii khawaarijta. howlgalka duufaanta aamusan waxaa lagu xoreeyey deegaanada Sabiid iyo Caanoole, Bariire iyo Awdheegle, kuwaa oo in muddo ah ay argagixisada ku hayeen dhibaatayn. xoreynta deegaanadan waxay muhiim u tahay isu socodka, wax soo saarka beeraha, kobcinta dhaqaalaha, dib u soo celinta adeegyada bulshada iyo sugidda amniga. in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada EUSOM ay la wareegeen deegaanka Sabiid iyo Caanoole. howlgalka deegaankan lagu qabtay oo socday muddo usbuuc ah waxaa lagu magacaabaa duufaanta aamusan. waa howlgal aan ugu talagalnay in deegaanada ay haystaan khawaarijta aan dhammaan kaga xoreyno oo dhibaatadooda aan kaga dulqaadno ummadda Soomaaliyeed. howlgalka seefta qarsoon wuxuu ciidanka u suurtageliyey inay sugaan marino muhiim ah oo isku xidha Muqdisho iyo Marka, taas oo xoojisay amniga deegaanadaas iyo wadooyinka muhiimka ah.
waxaa ilaahay fadligiisa in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay hogaaminayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallo culus ka waday dhulka ballaaran ee u dhaxeeya degmada Marka iyo magaalada Muqdisho in guulo la taaban karo ay ka soo hoyeen howlgalka Hillaac oo qayb ka ahaa howlgalladii Badar ee bisha Ramadaan ayaa lagu xoreeyay Mubaarak Daarusalaam iyo deegaano kale wuxuu muujiyay awoodda ciidanka ee sii wadida cadaadiska ka dhanka ah argagixisada in ay gacanta ku dhigeen si buuxda magaalada Mubaarak iyo tuulada Daarusalaam oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose guluf loogu magac daray loogu talagalay ama loo qorsheeyay bisha Ramadaan oo loogu magac daray Badar laakiin howlgalka Shabeellada Hoose si gaar ah howlgalkiisu waa howlgalka Hillaac dhanka cirka howlgallada la kaashaday saaxiibada caalamka ayaa lagu beegsaday saldhigyo muhiim ah xarumo sahay kaydhub warshado qaraxyo iyo goobo ay ku dhuumaalaysanayeen horjoogayaasha argagixisada guulahan waxay wiiqeen awooddii argagixisada waxayna kaliftay in tiro badan ay isu soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halka qaar kalena iyagoo firxada ay ka baxsadaan goobaha howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay furitaanka iyo sugidda wadooyin istiraatiiji ah oo muddo dheer ay qawaaridtu go'doomin cabsi iyo jidgooyooyin sharci darro ay ku hayeen howlgallada qorsheysan ee ay ciidamadu ka fuliyeen wadooyinka isku xidhan Muqdisho iyo Jowhar Muqdisho iyo Baydhabo iyo sidoo kale Muqdisho iyo Marka ayaa lagu jibiyey fariisimihii iyo jidgooyooyinkii ay argagixisadu shacabka kaga qaadi jireen baadda iyo handadaadda kadib guulahaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si nabada u isticmaalay wadooyinkaas taas oo dib u soo celisay isu socodkii shacabka gaadiidka ganacsiga iyo adeegyada muhiimka ah furitaanka wadooyinkan wuxuu astaan u noqday awoodda ciidanka ee sugidda amniga dib u xoreynta dalka iyo xoojinta xiriirka bulsho iyo dhaqaale ee gobolada dalka hoggaanka wasaaradda kuma koobnayn xafiisyada iyo shirarka caalamiga ah wasiir Axmed Macalin Fiqi wuxuu booqashooyin ku tagay furimaha hore ee dagaalka fariisimaha talisyada iyo qaybaha ciidamada ee gobolada Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe Sool iyo Baay Galgaduud iyo Mudug si uu u qiimeeyo xaaladda ciidamada una dhiirigeliyo geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa tihiin muraabitiin mujaahidiin dagaalka waxaa ka daran in dhufayska lagu sugnaado waa loo soo tababartay waa dhib badan waa shaqo badan dagaalku saacaduu socdaa ama maalmuu soconaya laakiin lagu sugnaado waa meesha raggu isku dhaafay waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad ku sugnaydeen weliba socodkii khawaarijtana inaad darbi u dhigteen oo hakiseen dadka South West degan iyo wiilashii dhalinyarada ahaa oo deegaankan kuwa isqarxinaya maalin kasta oo shabaabku intay ka duubaan codka adeerayaal kuwaas in la badbaadsho u baahan yihiin in lala hadlay u baahan yihiin sabab janno cali dheere uusan rabin oo mahad karatay uusan rabin oo Abu Cubaydah al-Shabaab haystaa uusan rabin sabab ayaga kaligood ay u jeclaadaan ma jirtay hal laga reebo janna meeshaas ma jirtay wiilashaas ama hal ugu hadlo warka soo haray la yiraahdo nimankan gafanayaasha oo gobolada kale ka yimid janna hadii la rabo wiilashooda ha u dirsadaan ayagu ha aadaan cali dheer waa soo taagaya guusha ciidanku kuma ekaan dagaalka waxaa la bilaabay dadaallo xasilina oo lagu soo celinayo nolosha shacabka gargaar iyo daawooyin ayaa la gaarsiiyey awdheegle qaar ka mid ah buundooyinkii ay burburiyeen argagixisada ayaa dib loo dhisay loona furay qoysaskii ay qawaaridtu ka barakicisay deegaanada Sabiid iyo Caanood waxaa dib u dejin loogu sameeyay guryo cusub oo dawladdu dhistay talaabooyinkani
waxay muujiyeen in xoreynta deegaanku aysan ku dhammaanin ka saarista argagixisada balse ay ku xigto dib u soo celinta bulshada iyo hirgelinta adeegyada aasaasiga ah. shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu naftiisa iyo dhiiggiisa u huro sidii shalay meeshaan nimankii qawaariijta ah oo godad ka qotay looga saaray deegaan kasta ummad kasta Soomaaliyeed ku dhibaataysan in uu dhiiggiisa iyo naftiisa u huro sidii dadkaas looga dulqaadi lahaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah ilaahina aan ka rajaynaynaa annagana naga go'an in deegaankan uusan mar dambe cadow ku soo noqon. guryihii qaybo ka mid ah dadkii barakacay oo khawaarijtu guryaha ka dudumisay guryahoodii oo dib loo dhisay way iska kaashadeen walaalaheen Turkiga iyo ciidanka xoogga dalka iyo dawladda Soomaaliya guud ahaanba dadkii maanta in guryo cusub oo standard fiicana oo ka wanaagsan xitaa kuwii hore u deganayeen in bilowgoodii maanta la wareejiyay oo dadkii la dajiyay. guulaha ay ciidamada qalabka sida ka gaareen dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab ayaa door weyn ka qaatay ballaarinta amniga iyo dib u soo celinta dawladnimada deegaano badan oo dalka ka tirsan. howlgallada ciidamada ayaa horseeday in markii ugu horeysay muddo ka badan nus qarni kadib dalka laga hirgeliyo doorashooyin qof iyo cod ah iyadoo magaalada Muqdisho lagu qabtay doorashadii golaha deegaanka 25 December 2025. sidoo kale 13 degmo oo ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay ka mid tahay degmada Awdheegle oo dhawaan laga xoreeyay khawaarijta al-shabaab ayaa laga qabtay doorashooyin toos ah oo ay si xor ah shacabka codadkooda uga dhiibteen iyaga oo aanan qabin wax cabsi ah. ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa door muuqda ka qaatay sugidda amniga goobaha doorashada, ilaalinta xarumaha codbixinta iyo xaqiijinta isu socodka shacabka, taas oo suurtagelisay in doorashooyinku ay u dhacaan si nabdoon oo hufan. wasaaradda gaashaandhigga waxay xoogga saartay ilaalinta shacabka gaar ahaan carruurta iyo rayidka ku nool deegaanadu ay saameeyeen colaadaha. 22 Juun 2025 Soomaaliya waxaa laga saaray liiska madow ee qaramada midoobay ee askaraynta carruurta. dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxay sidoo kale kala saxiixdeen hagaha hirgelinta qorshaha 2025 ee lagu xoojinayo ilaalinta carruurta ay saameeyeen colaadaha hubaysan. Way noo tahay maantay inaan saxiixano roadmap-ka ama hindisa hagaha qorshe hawleedka 2025 loogu magacdaray oo bedelaya ama update lagu sameynayo kii 2019. hagahan oo kale 2019 qorshe hawleed buu ahaa dowladda federaalka runtii iyo dowlad goboleedyaduba oo kaashanaya xafiisyadan waxay sameeyeen horumar weyn oo ku saabsan hagahaas iyo qorshihiisii waxaana laga soo dhalaalay hawlihii qornaay oo dhan si wada jirana waa loo wada shaqaynayay waxaana timid guushaas ku timid in Soomaaliya laga saaro dhowr bilood ka hor liiska ciidamadeeda inay askareeyaan carruurta in laga saaro guushaasaan ku wada gaarnay wada shaqayntii. Soomaaliya ayaa sidoo kale qaaday talaabo taariikhi ah oo ku saabsan ilaalinta rayidka xilliyada colaadaha. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi ayaa heshiis la saxiixday wafdi ka socday hay'adda civil kaas oo lagu xoojinayo ilaalinta badqabka rayidka, yaraynta waxyeelada ka dhalan karta howlgallada ciidan iyo horumarinta habraacyo waafaqsan sharciga qaranka iyo kan caalamiga ah. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada u gudbisay siyaasadda ilaalinta carruurta ay saameeyeen colaadaha hubaysan, taas oo golaha wasiiradu si rasmi ah u ansixiyeen 2 Abriil 2026. heshiiskan iyo siyaasaddan la ansixiyey waxay taageerayaan hirgelinta siyaasadda qaran ee ilaalinta badqabka rayidka xilliyada howlgallada ciidan iyo colaadaha hubaysan, taas oo Soomaaliya ka dhigtay
dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee hirgeliya siyaasadda qaran oo si gaar ah diiradda u saaraysa ilaalinta rayidka xilliyada colaadaha. wasaaradda gaashaandhigga waxay xoogga saartay daryeelka iyo u helinta qoysaska shuhadada, naafada iyo howlgabka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo xuquuqda iyo daryeelka geesiyaasha qaranka iyo qoysaskooda. wasaaradda gaashaandhigga ayaa diyaarisay xeer nidaamyo muhiim ah oo la horgeeyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. golaha wasiirada ayaa 5 Maarso 2026 si rasmi ah u ansixiyay xeer nidaamyaha aasaasidda hay'adda daryeelka agoonta shuhadada, naafada iyo howlgabka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. 12 Abriil 2026 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhagax dhigay xarunta hay'adda daryeelka agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. tani waxay ahayd fariin cad oo muujinaysa in qaranku garab taagan yahay mustaqbalka qoysaska geesiyaasha naftooda u huray dalka, dadka iyo diinta. habeenkan weyn ee lagu maamuusayo lagu karaamaynayo shuhadadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, shuhadada ciidanka qalabka sida adduunka dal dagaal ku jira oo noocaan oo aan maalin gaar u ah lahayn ma jirto. marka waxaan rajaynaynaa madaxweynahan uu proposal garayn doonaa habeenka 28 ee Ramadaan in loo aqoonsado yawmu shahiid oo qarankoo dhan meel kastoo lagu jiro, meel kastoo la joogo looga dabaaldego oo lagu maamuuso caruurtii iyo qoysaskii iyo ciidankii ku shahiiday, nooga shahiiday iyo saraakiishii nooga shahiiday in lagu maamuuso. maalinkan maalin gaar u ah ay noqoto waan rajaynaynaa. taliyahana waa ugu mahadcelinaynaa hal abuurkiisa. sanadkii tagay wuxuu wasaaradda gaashaandhigga u ahaa sanad lagu guulaystay hirgelinta howlo iyo qorshayaal wax ku ool ah oo wax weyn ka taray xoojinta awoodda difaaca dalka iyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. sanadkan cusubna wasaaraddu waxay hiigsanaysaa inuu noqdo sanad laga miro dhaliyo himilooyin waaweyn iyo guulo hor leh oo ka tarjumaya adkaynta difaaca qaranka, ilaalinta madaxbannaanida dalka iyo dhowrista sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed.